aragnimo cimri ima harsan labeen 80 baan ahay hadii mudaaharaadada iyo waxaas ay joogsan waayaan oo dhimasho dhacdo oo bixi dhacdo oo isaha laba dhacdo oo ay joogsan waayaan waxa la yeeli doonaa maadugtii يونسون با إيمان دونتا يونسون هلا كان على الله شيخ عبد الله الشيخ علي جوهر شيخ البلد كسومالي لنا يامركو ورئيسي كهل حالة كودا دلكو مريو وحنو يستولتاجي مظاهرات حزبية معارض كواي كدغين دلكا وحنو شيغين هديبا ربشدها سياسي سعودان إن سومالي لنا يخطر أي كتهاي وحنو فرينو دري مسؤولين تسدح حزب قران سيدي بي مدو كجوجتي معارضة وجهت ظاهر ريال حيتي قبطي oo xilkii la wareegay iyo Axmed Yuusuf Yaasiin way jirtay mucaaradada islaam baa loo caariday isagana dadku inna way caaridaysuun inna way ayidsanaydu waxa ku xigay Axmed Maxamuud Siilaan yaa ku xigay iyo Cabdiraxmaan Zayl inna way ayidsanaydu inna way caaridaysay waxa qabtay Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Ismaaciil oo mar labaad ku soo noqday ayaa qabtay inna way caaridaysaa inna way ayidsan tahay way mucaaradadu waa shay jira horta weeyaanoo waxa la ilaa waxa maxay hayday ninka madaxa waa caarid kara waliba caaridiisa ku kala caaridaya qaabka ugu fiican waxa weeye waxaan bogaadinayaa odayadii bariga dhaweyto is urursaday ama culimada ahaa ama salaadiinta ahaa ama baamshariga ahaa ee kullu mucaaridka u tagaayay kullu madaxweynaha u tagaayay waa qaabka sharciga islaamku ogol yahay in madax loo taliyo ama ha ka qaato ama yaanu ka qaadin laakiin idinka waajibkaaga dhamaysta sidaas anaga nala tahay aad fiican bay odayaashaas ay ku kicin ama la yeelo ama yaan la yeelin aad baan ugu bogaadinayaa odayaankaas laakiin ma aha in la yiraahdo aan dhulka dhigna la yiraahdo aan baabiin la yiraahdo ma aha iyadoo qofka ninka madax la doorto ama ka muqdisho jooga maanta ha ahaado ama keena Soomaaliland jooga ha ahaado Soomaali waa isku duruuf baynu wadanahay isku wada mid baynu nahay ninka madaxeehe la doorto wax xilka laga qaadi kara oo kaliya maalinta ninka la doorto maalinta uu baa maxay hayday oo baa laga qaadi kara xilka sidii kuwii hore loo doortay laakiin ka dhaqaaqun kuma doonayno waa fiidnadii Sayd Uthman waa fiidnad aynu ku baaba'ayno innaguna waynu ku baaba'ayna arrinkaas hadduu sidaa u socdo waxan buu ina dhaxalsiinaya waliba awliyanimada ku sheegi maayo anigu waan ku riyoodan oran maayo laakiin waa aragnimo cimri ima harsan 80 baan ahay hadii mudaaharaadada iyo waxaas ay joogsan waayaan oo dhimasho dhacdo oo bixi dhacdo oo isaha laba dhacdo oo ay joogsan waayaan waxa la yeeli doonaa maadugtii Yunusson baa iman doonta Yunusson halla keenaa la oranay xamar kolkii sidaas ay dhacday fawdada ay dhacday maxay ciidanka Yunusson ugu horreeyay Pakistan iyo Masar maxay ku yimaadeen waa dadkan dhiigiisa qaboojiya United Nations baa soo galiyay hal la geeyay baa leeyahay walaalaheena xamar wadada walaalnahay weeyaan wadada isku jiidnahay wadada isku damqanayn iyaga waan ka xunay dhibaatada gaadhay la shaka inaga teena way ka xigeen oo eegan maayaan oo oran maayaan ha islaayaan meel ka filaysan inay yiraahdaan la kama filayo anigu way wadada Soomaaliyeed weeyaan waxa kaliya yiraahdaan waxa weeye maanta awood ma lihin dadka iyaga anigu kala celinay jamciyadda quruumaha ururka Afrika igaad jaamacadda carabtu ciidamaha noo geyso hal noo qabto inta aan bay soo jeedinayaan oranayaan إنه دور la ogol yahay mutaxida laga ogol yahay waa la xariiqoon wax la ciidan Yunusson ma halagay koon kordii joogsan waayeen oo buuqi iyo dagaalkii iyo rabshadii waadi la samax Allah ilaahay kama dhigo laakiin haddii waxaas joogsan waayo waxaas ay dhalin mid baan sheegayaan gobolada dhexe u sheegaya anaga awdal ciidamada Djibouti baa noogu dhow oo la oran doonaa Yunusson ta Djibouti hal la dhigo oo Djibouti hal la geeyo Djibouti waa walaalahay codka kama qabno qabsina kama qabno awdallaan qoladii oran jirtay halkan ay boorka ka yarto dufu doontaa oo oran doontaa awdallaantii baabaaday halkan ay boorka ka ridi doonaan oo boorka ka jafi doonaan qoladan ree soolna imaaraadka iyo inta badan dawladdu waxay u eegaan duruufo u eegaan oo dalka ay dirayaan waxay u eegaan jinsigiisa noociisa imaaraadka iyo waxa la oran Suudaan baa ugu dhawey iyaga ciidamada Yunusson dawladuna aad buu jecel yihiin ciidanka jamciyadda quruumaha ay dirayaan oo $1000 baa la siinaya iyadoo dawladii lafaheeda u dayacan يا هدي لا يرى عيدا Yunusson ما لقى قاضي يا جمعية الله ديريا والله كلا بوبا يا دولة القالة وين بكيرسة قبل الله نحن واحد الله ديري السودان يا إمارات قال أورن يجونا خاتم البورد كجف يعني خاتم البورد كجف قبل الله النحية الله صاد ديري ليش عشان دقيسة إلهي هرت كمر دقه عدو إلهي إنه من شبيه إلهي خلاف كهي نجقبته خلق الله نجقبته من مدن إلهي عاد كيو حديث السيد عبد الصعطان عبد الصع عدكو وضعنا
oo ninka madaxweynaha la doortay aad leedin qoortaan soo qabanayna baan ka maqlaayay nin baan ka maqlaayay maan dhaweyto sheekh ibraahim baa cabdiraxmaan qoorta soo qabtay adna qoortaan ku soo qaban buu war cabdiraxmaan codun baa laga helay qoorta soo qabtay soo kiis sharaf loo iskaga baxay ee kolkii codkii dhinacyal la qaadayo uu iska baxay wax alla wax dhibaato uu sameeyay wax caro uu sameeyay ninkaasi gobonimadiisa haaba yaraatay iyo xanaaq uu sameeyay midna ma jiro qoor soo qabatayna ma jiro nin baan maqlaayay laha waa ku soo dhicay qoortaan ku waa ninka hadda ciidanka RRUD iyo biliiskii iyo militarigii iyo haysta hadii reernimo la yiraahdo isna reeraha oo reernimo lagu soo weerarana reerihii kale ay wada diyaarayeen Soomaaliland oo dhan ay meesha wada joogaan iyo qoortaan ku soo qaban aw niil marka qolada gobolada dhexe ayaa loo soo diray waxa la oran waa laga tashanay waxa la oran qolada gobolada dhexe waa nimankii dawladii Siyaad Barre ee geeska Libaaxa Afrikada bari ahayd waad hore xil islaas lagu tilmaamayo Libaaxa Afrikada bari loo oran jiray laakiin sabankii wixii ka dambeeyay Soomaaliya oran jiray dawladda Soomaaliyeed baa loo jiray waa Libaaxa Afrikada bari ayaa la oran jiray waa qoladii Libaaxa Afrikada bari ee dawladii Siyaad Barre markii ay jeeday yaa loo soo xulaa iyaga Rwanda iyo Burundi iyo Belgium iyo Mareykan iyo Ahmarka Goojam iyo Gondar iyo nooca u xulaa la oran noocaas Hargeysa burcaba lagu soo daadin ilaahay kama dhigay waa hadan ka joogsan weyn war waxaan yeeshaa war cadow hayno loogina war taariikhdii beelaha kala rabshada kama dhacaysay waa idinka reerka dhexe weeyo waxa rabshada wadaay madaxweyne cad wadaan oo leeyihiin kanaan maanta meesha fadhiisinaynaay وحق بعض الذين عرضان وتلاقوا مد دورتان أو أما عبد الرحمن لكان أما فيصل لكان رجع ترتمي أما قوة كلا إلا شيء جيو حق بعض لوليه لكن إن الله يراه هذا يسوق أو شرعي عن نجيه لسه هو بحوان كقاضي النهاية نك عيد كابليس كهايس عارف القضاء اللي لابن لبسه دافع إنه دافع كريس أبا أنا جينا هدول البوليس كلا كوبا إمبا قضاء يراه إنك صبح عارف الله يراه أي عيد وبضل المري شعبي جنا يعني للوجين أو الأورن محيط الدجالم الأورني لكن هل الدون أو النظام يوحون هل الدون قاب هل الدون وحن سو جيرين يا ترى مدح محيط القدومية حزبك أوعد فيصل علي ورابي بالله هذا أيات كل هذا حي نبت قليل الصومال لان كان عادات كل هذا لبضي كلام مرحوميتي ويدين عبد حسن يرشح حسن بيجاوب ويدين أديك أيا كنور بالله ده الذهب كأيه هلكا كوجو حراني يعني كان نقولن مار يعني كان نقولن قدوميها كلا حزب وطني حرس حاج علي استقرنا والله حرسه إن كان أورن جريبة تاعي رجل الغد رجل بري وطن كوجعني كيس النقد دونا صبر يد القاع يا صبر يد القاع يا صبر يد القاع يا وحنا له هي قدومية حزب الدولة ده محمد كاهن الأحزاب بنكهض يعني كما هذا يركض كله محمد كاهن وحنا له qolada anigu aan taladeeda ku dhiibanayo ee golayaasha wixii golayaasha ka soo baxa golayaasha sharci dejinta guurtida iyo wakiilada wixii ka soo baxa xisbigaagu haw hogaansamo al hal waxa igu dasoo saddex qodob baan ka hadlay al khilaafat fil islam waan ka hadlay al ahdath al jariyah fil bilad waan ka hadlay deen wax dhaaf kale waa laga yaabaa daadaba anigu leh hal anigu waxa igu muuqataa arintaasi dadka ma dhex taalo shacbigu arintaa waa inuu ka fadhiisto faraha ka qaado salaadiinta odayaasha cuqaasha wax garadka iyaguna waa in arrinka farta ka qaadaan yaa lagu ogyahay hadaba waxa lagu ogyahay golaha guurtida iyo golaha wakiilada ee la isku ilaa baarlamaanka la isku ilaa iyaga lagu ogyahay laba oday oo qiimo leh ayaan ku ogahay mid waan wada shaqaynay midna inta ayada imika aan bartay waa nin qiimo leh salaaxiyaadka guurtida ayay kamid tahay xaaladda caynka ku dalku marayo إن يجوا بارلمان كإستكشافين أما جوني بحال نقدان أما ودجير بحال نقدانه واحد قرار سو جارة أو أنت قلت أفريستان حل جارة وضن أكون نضم شعب جمر لبعض بنكون نقولنا ولا اللي يعلمون كنا شعب جو وحي كسب بحق ولا يا شعب بارلمان كسب بحال هلوه جانسم قبل كستابا هو جانسم أهونه يعني نقولن ضد ديبو فرفرة وحي عصار دسين يعني ديبو فري مركز ديبيان لون نقولن war hal la dhowro oo hal la ilaaliyo oo nidaamkeena aan dhowrno oo aan is ilaalino oo aan dhowrno waxa lagu hadaaqa oo la ilaa i'tiraaf baan doonayna waa la leeyahay waxaana waa la sameeynaya walaalayaal waxaan mar labaad idin soo jeedinaya ilaa baan idinku dhaariyay ragiina buuqa sameynayo dadka soo kicinayo hal la buuqalahow maalintii dhoobitaan eegayo dadka soo kacaya dhalinyar bay u badnaayeen dhacyar bay u badnaayeen walaalayaal dadka dejiya oo hal dejiyo wixii aad wax ku doontaan ha noqdo
dariiqii kolka horeba aad ku doonayseen ee silmiga ahaa ha noqdo ee nabadgelyada ahaa ee awalba aynu ku soo caanmaalnay ha noqdo idinkana sidaasaan idinku adkaynaya walaalahena koonfureed sidaasaan leeyahay mucaaradada xambaarsan mudaaharaadka xambaarsan mucaaradadu way jirtaa madaxa waa la caaridayaa waa laga hor imanayaa waa la diidayaa oo sidaa yeel baa la odhanayaa laakiin mudaaharaadkaasi waa wixii khilaafadii islaamkii dhibaatada weyn gaadhsiiyey waqtigeenan xaadirka ana dowladaha islaamka ah wuxuu ka geystay la ogyahay hadday suuriya tahay hadday liibiya tahay arrinka walaalayaal halkaa ku joojiyo oo kola tidhaahdaan aan odayadii waaweynaa baa naga codsayna aad tidhaahdaan oo odayada ducadeedaan qaadanay aad tidhaahdaan waxaan u soo jeedinayaa guddoomiyaha labada xisbi waa ilaahay haydin asture annagana hadalka aanu ii soo jeedina annagoo masaajidkaa weyn joogna nagu asturo oo walaalayaal joojiya arrintaa mudaaharaadka inaga joojiya sidii kaleed wuxuu doonaysaana u doona waxaan mar labaad ku adkaynayaa guddoomiyaha golaha guurtida iyo cabdirasaaq cumar macadowliyo telefishinka CBA Boorama